ruuxa aan rabo maanta inaan ka faaloodo tooshkan ku ifiyo waa malkiilaha shirkadda weyn ee Amazon ahna ruuxa ugu taajirsan caalamka waqtigan. Maxaad ka ogtahay nolosha Jeff Bezos? maxaad kala socotaa in xaaskiisa ay magdhow ahaan uga qaadatay 36 bilyan oo dollarka Mareykanka ah? sidoo kale dadka qaar ma ogeyn milkiilahan uu yahay ganacsadaha kaliya ee ka faa'iiday intii uu socday faafaha caabuqa coronavirus. muuqaalkan waxaad kaga bogan doontaa jawaabaha su'aalahan iyo ka hadalka sira badan oo ku aadan ganacsadaha ugu taajirsan caalamka. inta aanan guda gelin fadlan aan ku xasuusiyo inaad like saarto muuqaalkan lana wadaagtid asxaabtaada si aan u helno una gaarno asxaab badan. mahadsanid. Jeffrey Preston Bezos ayaa si dhow loogu garanog yahay magaca Jeff Bezos kaasoo sida ku xusan taariikhda dhashay January 22 sanadkii 1964 isagoo ku dhashay gobolka New Mexico ee dalka Mareykanka. ganacsadahan ayaa hoggaanka u haya maalqabeennada dunida isagoo magaciisa ku xardhay kaalinta ugu sarreysa dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Jeff Bezos waa aasaasaha, agaasimaha guud iyo weliba madaxweynaha shirkadda aadka u magaca weyn ee Amazon. Jeff ayaa ah wiilka iska dhaleen Jacqueline iyo Ted. hooyadiis Jacqueline waxay ahayd 17 jir dhigata welina xaadirta dugsiga sare markii ay dhalisay, halka aabihiis uu ahaa mid haysta dukaan lagu iibin jiray mootooyinka. waalidiintiisa ayaa kala tagay markii isku fahmi waayeen duruufaha nolosha adag, taasi oo sababtay in hooyadiisa ay la kulanto haasawana la yeelato Miguel Bezos oo loo yaqaanay Mike, asal ahaanna ka soo jeeday dalka Cuba. kadib in muddo xiriir ka dhaxeeya labada lamaane ayaa waxay isku afgarteen islana meel dhigeen inay isguursadaan oo ay guri ku wada noolaadaan. taariikhdu markii ay ahayd bishii Abriil sanadkii 1968. maalmo yar oo kaliya markii ay ka soo wareegatay guurkooda ayuu Mike ka faala qaaday lana wareegay Jeffrey oo markaasi 4 jir ahaa si uu u korsado una qaato magaciisa Bezos. qoyskan cusub ayaa u wareegay magaalada Houston ee gobolka Texas, halkaas oo Mike ka ahaa injineer ka shaqayn jiray company soo saara saliidda. Jeff Bezos oo ah ruuxa ay warbixintani sifaynayso ayaa dugsigiisii hoose iyo dhexe ka dhameeyay iskuulka River Oaks ee ku yaala magaalada Houston. yaraantiisii waxaa la sheegaa inuu ahaa qof aad u xiiseeyay tiknoolajiyadda iyo inuu wax ikhtiraco, iyadoo marka laga sheekeynayo taariikhdiisa ay qasab tahay in la xuso inuu ku rakibay qolkiisa gambaleel ku shaqeeya koronto si uu qolkiisa uga ilaaliyo walaalihiisa inay soo galaan. dhowr sano oo ay qoyskiisu ku noolaayeen magaalada Houston ayaa waxay taariikhdu xusaysaa in familkiisa ay Jeff Bezos u wareegeen magaalada Miami ee gobolka Florida, halkaas oo uu ka bilaabay waxbarashada dugsigiisii sare iskuul lagu magacaabi jiray Miami Palmetto High School. waxaana la sheegaa in muddadii uu ardayga ka ahaa iskuulkan uu ka shaqayn jiray McDonald, taasi oo caan ku ahayd waxa loo yaqaan fast foodka ama cuntooyinka fudud, waxaana waqti shaqadiisa ay ahayd aroorta hore. Jeff Bezos ayaa sanadii 1986 ka qalin jabiyay jaamacadda Princeton isagoo ka mid ahaa ardaydii jaamacaddaasi ka baratay electrical engineering iyo computer science, iyadoo sidoo kale la xuso in xilal badan uu ka soo qabtay jaamacaddaasi muddadii uu ardayga ka ahaa. qalin jabintiisii heerka jaamacadeed kadib, Jeff Bezos ayaa ka helay codsiyo badan oo shaqo ah kambaniyo aad u waaweyn magacna kula caalamka oo idil, oo ay ka mid ahaayeen shirkadda Intel, taasi oo ka mid ah shirkadaha aadka ugu xeelka dheer soo saarista qalabka kombiyuutarka ku shaqeeya sida motherboardka, graphic cardka, processorada iyo kuwa kale oo badan. shirkaddan ayaa inta badan ka iibisa qalabkeeda kambaniyada waaweyn ee soo saara kombiyuutarada sida Apple, Lenovo, HP iyo Dell. Jeffrey ayaa ka cagajiiday iskana indha tiray fursaddan uu kaga mid noqon lahaa shirkadda Intel, isagoo aad u xiiseynayay inuu ku biiro shirkadaha maalgashiyada iyo bangiyada. shaqadiisii ugu horeysay waxa uu ka bilaabay company lagu magacaabi jiray Vital, kaasi oo ka howlgali jiray maareynta dhaqaalaha iyo maalgashiyada caalamiga ah. shaqadiisii xigta ayaa la sheegay inuu ku biiray banki lagu magacaabi jiray Trust, halkaas oo uu ka shaqeeyay intii u dhaxaysay sanadihii 1988 ilaa 1990. 2 sano kadib waxa uu ka mid noqday dadkii wax ka furtay shirkad cusbeed oo ka shaqayn jirtay maalgashiga taasoo loo yaqaanay D.E. Shaw, halkaasina waxa uu ka shaqaynayay ilaa 4 sano, waana intii u dhaxaysay 1990 ilaa 1994.
waxaana isla sanadaasi uu mar kale isaga tegay shaqadiisa isagoo u wareegay magaalada Seattle ee dhacda Washington si uu u furto baqaar ama dukaan lagu iibiyo buugaagta, iyadoo ay xusid mudan tahay inuu ka dhex furtay garaashka baabuurta ee gurigiisa ku dhex yaalay. Kambanigiisa cusub ayuu ugu magac daray Cadabra, walow markii dambe uu magaca ka bedelay isagoo u bixiyay magaca Amazon, isagoo ugu magac daraya webiga weyn ee mara wadamada Koonfur Amerika sida Brazil, Argentine, Chile iyo wadamo kale. lacagtiisii ugu horeysay uu ku bilaabay ganacsigiisa cusub ayaa waxa uu ka helay waalidiintiisa, taasoo gaaraysa $300,000. waxaa la sheegaa sidoo kale asxaab xilligaasi maalgashiga kula jirtay inuu ku wargeliyo una sheegay in 70% laga yaabo in ganacsigan uu noqdo mid dhicisooba isla markaana guuldareysta. Jeff Bezos oo ka faa'iideysanayay isticmaalka internetka oo aad u soo sarakacay ayaa waxa uu abuuray website uu ku iibinayo buugaagtiisa July 16 sanadkii 1995. sida la sheego qorshihiisa kaliya ma uusan ahayn inuu ku iibiyo website-kiisa buugaagta, balse mar walba waxaa maskaxdiisa ka guuxayay in website-kiisa gaarka uu ka dhigo mid wax walba laga heli karo. taariikhdu markii ay ahayd June 1998 Amazon ayaa bilowday inay iibiso cajaladaha loo yaqaano CD-yada iyo weliba muuqaallo, isagoo soo maray marxalado kala duwan iyo dhaqaale xumo, walow uu markii dambe ka soo kabtay. tusaale ahaan sanadkii 2002 dhaqaale xumo soo wajahday kambaniga Amazon ayaa waxa ay sababi rabtay in dhammaan albaabada la isugu dhufto ama gabi ahaantiisaba la xiro, walow markii dambe xal loo arkay in la yareeyo xafiisyada iyo dhammaan shaqaalaha shirkadda 14%. tallaabadan ayaana sanad kadib u horseeday in Amazon ay dib uga noqoto wadada guusha, iyadoo sanadkii 2003 ku dhawaaqday inay heshay faa'iido iyo macaash gaaraya $400 milyan. intaas kadib Amazon ayaa noqotay shirkadda ugu weyn caalamka ee iibisa alaabaha online-ka ah uguna dakhliga badan, iyadoo adeegsanaysa baraha xiriirka bulshada dhinaca internetka. Mackenzie waxay ahayd xaaska Jeff Bezos muddo 25 sano ah, iyagoo ku kulmay kambanigii la oran jiray D. Shaw, halkaasi uu markii ugu horeysay uu kaga qaaday interviewga. labada lamaane ayaa lagu tilmaami jiray lamaanaha abid ugu taajirsan caalamka soo mara, waxaana xusid mudan inay haysteen 4 caruur ah oo ay isku dhaleen. bishii July sanadkii la soo dhaafay ayaa waxaa dhacay furitaanka labada lamaane, iyadoo dhacdada mucjisada leh ee furitaankooda laga xasuustay ahayd inay Mackenzie xaq u yeelatay sheer ka mid ah sheerarka kambaniga Amazon, kaasoo lagu qiimeeyay $36 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. furiinkan ayaa ka dhigay Mackenzie gabadha afraad ee dunida ugu lacagta badan ama ugu taajirsan, iyadoo ay xusid mudan tahay in kaalinta koobaad ay hogaaminayso Alice Welton oo haysata hanti gaaraysa $54.4 bilyan oo lacagta Mareykanka ah. dhibaatada ka dhalata lacagaha ka baxay akoonkiisa oo dadka qaar ay la yaab u arkeen, Jeff Bezos kama aysan reebin inuu sii ahaado ruuxa ugu taajirsan haatan, isagoo haysta hanti gaaraysa $186.9 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. sida diiwaanka ku qoran waxaa haatan la sheegaa in maalintii uu sameeyo faa'iido gaaraysa $321 milyan oo dollar. waxaa suuragal ah inay taasi la yaab kugu noqoto, waase ka sii dari doontaa markaad aaminto in saacaddii uu sameeyo lacag gaaraysa $13.4 milyan oo dollar. wow, macquul ma ahan ayaad leedahay, laakiin ogow waxa uu daqiiqadii sameeyaa ama uu faa'iidaa lacag gaaraysa $22,884. sheekooyinka la yaabka leh ee ninkan la xiriira aadna website-yada ay u qoreen waxaa ka mid ah in caabuqa iyo cudurka dunida duleystay ee loogu yeero coronavirus-ka uusan gebi ahaanba waxyeeleynin hantida iyo ganacsiga maalqabeenkan, balse viruska coronavirus uu si aad u caawiyey, isagoo hantidiisa sare u qaaday uguna daray macaash gaaraya $4 bilyan oo dollar. balse haddii aan idin xasuusiyo, keli kuma dadka ku faa'iiday cudurkan sababay in bilooyin aan wax dhaqdhaqaaqa aanay ka dhicin dunida oo dhan, iyadoo dhammaan isku socodka iyo safarada la hakiyay cabsi laga qabo faafidda cudurkan. Eric Yuan oo ah CEO-ga kambaniga Zoom oo ay dadka badi yaqaanaan ayaa ah maalqabeenka labaad ee ka faa'iiday muddadii lockdown-ka lagu jiray ama dadku ay guryaha joogeen, iyadoo dhammaan caalamka waxbarashada iyo shaqooyinka loo wareejiyay online iyadoo loo isticmaalayo Zoom bilooyinkii la soo dhaafay. Eric Yuan ayaa hantidiisa ay sare u kacday $4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah
sida diiwaanka ku xusan. yeelkeedii warbixintan waxay taabanaysay taajirka iyo ninka ugu lacagta badan waqtigan adduunka oo dhan, noloshii uu ku soo koray iyo sida isagoo shaqo haysta uu u joojiyey islamarkaana uu diiradda u saaray waxyaabaha fikradihiisa ku jira, islamarkaana ugu dambeyn uu u guulaystay isagoo shaqadiisii ugu horreysay isagu uu leeyahay ka dhex bilaabay garaashka gurigiisa ku yaala ee baabuurta lagu xareysto, waxaana ugu dambeyn uu gaaray inuu noqdo shakhsiga ugu taajirsan caalamka. haddiise aad xiiseynayso in sheekooyinka noocaani oo kale aan soo badinno, waxaa dhiirigelin inoo ah inaad muuqaalkan laag saarto una sheergarayso asxaabtaada. magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho. aad iyo aad ugu mahadsan tahay la jaanqaadkaaga.